بعد السلام هذا البدن وما يستاجن مر لبعض وحان ربا إنه مهد عليو دولة جبلين بونتلين وأن مرتد النهاي شلي لغسو دوي سي ايربوركا سيدو wanaagsan gudoomiyaha golaha wakiilada iyo xildhibaanadiisa iyo maxay ahayd odayaasha iyo dadka sharafta badan ee shalay soo dhaweeyay iyo dib u dejinta naloo sameeyay iyo hoolka quruxda badan ee hadda naloo dhigay gogosha intaba iyadana waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin runtii waa wax weyn oo ku deesho mudan waaye insha Allah iyagana mar labaad ugu mahad celinaya mid kale insha Allah waa sida uu gudoomiyaha u sheegay shirkan waa shirkii shanaad waxaan u maleynayaa wuxuu bilowday 2006 bishii Janaayo inay ahayd baan filayaa mar kale oo labaad wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo Kampala marka xigtay wuxuu ka dhacay Muqdisho ay ahayd tii afraad ani ma joogin South Africa jiray laakiin ayagana wuxuu ka dhacay Baydhabo insha Allah intaas soo socday maanta waxaa nasiib u yeelatay dawlad goboleedka Puntland oo aan maanta dhex joogno insha Allah taala waa sidoo gudoomiyaha uu sheegay hoggaan baanu nahay wakiilaan nahay waxaan u dhaxaynaa xukuumadaha iyo shacabka marka waa laga maarmaan annaga horta inaan isbaranno baahiyaheena ogaano insha Allah dawladda federaalka ah oo aan xubnaha ka nahay iyada wadanka matasha wixii kabid u baahan oo ay u baahan yihiin maamulada ayada laga rabaa runtii baahi badan baa jirta oo ay u baahan yihiin baarlamaanada xubnaha ka dawladda federaalka aqoon kororsi haday tahay sharciyada la sameeyay haday tahay wax badan insha Allah oo ka wada hadli doona jiri doona marka insha Allah taala aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu mahad celinaynaa Puntland iyo baarlamaankeeda iyo dawladeeda iyo shacabkeedaba insha Allah annagana insha Allah waxaan rajaynaynaa horumarka ay gaareen inaan gaarno marka insha Allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh